wararka baryahan saana isaga soo daba dhacayaan mid qaba mid sii daa waay mawjadan meel u socoto lama yaqaano gobolka Minnesota ahaa Minnesota aadaya qof walba boorsidiisa u sii watay hadda waxay taagan tahay Minnesota ilaahay aanan ku tagin waxa ka taagan waa la yaaban yahay maxaa laakiin gobolka lagu maagay maxaa lagu arkay gobolkaas waxa dawladda ay ku aragtay gobolkaas la yaaban yahay sidoo sheegay madaxweyne Trump uu leeyahay waxaan rabaa inaan ka nadiifiyo wadanka siiba gobolkaas inaan ka nadiifiyo dadka dambiilayaasha ah dadka wax geystay dadka aanan bulshada iyo dalkaba aanan waxba ku soo kordhinaynin waxaan rabaa inaan ka nadiifiyo sida uu leeyahay iyo sida aan arkeenno way kala duwan tahay taas waxay na tusaysaa sheekada inay taas ka weyn tahay sida loo malaynayo ma Soomaalida oo dhinac laga ceersanayo la ogaa hadda dadkii oo dhan waxa la yiri waa la simay wax walba cid walba iyadoo dusha laga marayaan u jeednaa hadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمرك لي برنامج كان دنجر شو وحان بريحان سعودة runtii waa wax la yaab leh oo loo adkeysan karin adduunyada dalka Mareykanka wuxuu ku lahaa sumcad weyn sumcadaasna waxay ugu baxday wuxuu ahaa dal dimuqraadi ah dal wuxuu ahaa maaragtay kala dambeyn iyo nidaam iyo adduunyo wax noocaas iyo xuquuq bini'aadan iyo waxaas ay ka jiraan bariyahan waxa ka dhacaya laakiin wixii lagu eedeyn jiray Afrika iyo Asia iyo wadamadaas kale wax ka daranaa ka socda dadkii sida xayawaanaadkii oo kale saas dadkii loo jiidayo hawada la wilfinaya bini'aadankii meelay u sii socotana ilaahay yaqaan sanadkii hore wixii soo gaaray iyo arintii sanadkii hore nagu dhacday anagoo la yaaban iyo odaygii sidoo noo daba qaatay asagii kooxdiisii taas anagoo la yaaban sanadkan markuu dhashay hadana way nooga sii dartay Soomaalida waxay noqdeen target meel walba inay target laga dhigto oo odaygii afkiisaba aan ka dhamaan weyno oo markasta meel soo istaagaba inuu Soomaalida soo hadal qaato Soomaalida marka hore targetkii weyna iyaga ah laakiin ummadii kalena hadda waa la target garaysanaya marka gobolkaas sheekadiisa meel waxay maraysaa ilaahay xalkeed ogyahay laakiin Soomaalida Minnesota kaliya ma ahayn Soomaalida Mareykanka oo dhan xaaladooda runtii loo baqaaya markaan naagtan baryahan meel ka baxday waa la waay waa naagtii looyarada ahayd oo businessyada ama ganacsiyada Soomaalida albaabada ku garaacaysay oo intay qaadata camera ka soo duubaysay oo sheeko maaragtay aan la aqoon ka baafinaysay naagtii meel ku dambeysay lama yaqaano waxaan u maleynayaa iyadii iyo kooxaheedii baryahan xoogaa way gaabsadeen markay eyes arkeen sida wax yeelayso waxaan u maleynayaa lafeeda u baqday iyadii cameradeeda in inta lagu dhagay lagu jiido dhulka ka baqday marka baryahan sheekadeedii waa laga nastay iyadii kooxihii wax duubi jiray laakiin sidee noqotaba aniga uma maleynayo in toos suuqa uga baxayaan sababtoo waa dad lacag ee bush garaynayso lacag iyo magac raadis iyo maaragtay wax noocaas ah bush garaynaya marka waa dad ooman oo raba inay wax ku helaan sidaan inay wax ku helaan raba waxaan ku faraxsanahay videoyaashii reer Ohio sida ay isaga dhiciyeen oo videoyaasha laga soo duubay iyadoo albaabada garaacaysa ninkii qadaadka intuu ku soo dhagay banaanka u soo tuuray waxaana wanaagsan markay albaabada soo garaacaan kuwaas oo kale qaabkaas oo kale in loola dhaqmo Janice ba aan la siirin ee ku hadlaan marka si fiican uu yeelay ninka odayga ah oo albaabka ka soo xirtay arintii dacwadeedii halkee marayso laakiin lama oga dacwadii la yiri waa la dacweeyay meelay marayso cid ka hadashay oo dambe kulli aniga ma arkin baraha bulshada kuma arkin naagtan hadii la dacweeyay dacwadeeda in sida looga haro ma aha iyada iyo kuwa kalaba in laga haro ama in la dhayalsada ma aha waxa laga yaabaa mideeda koobaad inay soo rogaal celiyaan mideeda labaadna waxa xataa hadaan soo rogaal celinin sumcadda dadka Soomaaliyeed ee rabtay inay ku dheesho iyo sida ay rabtay inay samayso darteed inaan laga harin iyadii kooxda kale sidaas oo kale iyagana ku qaraabanaya intaba hadii la heli karo in la wada dacweeyaa fiican sababtoo ah sumcad xumida wadankan waa la isku dacweeyaa qofkii sumcadaada ku dheela oo sharaftaada iyo businesskaaga sharaftiisa ku dheela in intaas looga haro ma aha in la dacweeyo oo meel walba lala galay istaahasha videogan dabacasar si fiican ugu farayareystay kooxdan iyo asaga inay ishelaan way u baahnaayeen dabacasar wuxuu noqday ninka Soomaalida reer Ohio u soo baxay dabacasar sidoo nimankan u dabagalay iyo sida iyagana mar walba intay u yimaadaan mikrofoonka afka ugu saaraan oo Quraanka asagana ugu daliiliyo oo waliba Englishka iyo Carabiga iyo Soomaaliga intaba uu ku taruuruxiyo si fiican uga raayay dabacasar waxaan dhihi karnaa sanadkan wuxuu noqday afhayeenkii reer Ohio Soomaalida reer Ohio waa ninkaasay meel uga soo baxay sanadkan wiilkan waa u hambalyeynaa wiilkan reer Minnesota ah sida wanaagsan uu la dhaqmay nimankii iyaga ahaa sida uu la dhaqmay uu sida isaga celiyay si aan caadi ahayn si fiican uga soo baxay waajibkiisa
asaga keliya ma aha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira videoyaal badan oo meelaha la soo geliyo gabdho iyo wiilal intaba isugu jira. Gabdho waxaa jira iyaga ruuxadooda aad uga soo baxay kaalintooda oo runtii si fiican u difaacay bulshadooda iyo communitygooda. Waxaa u saamaxaya qofka inuu sidaan oo kale runtii sameeyo. Waxaa u saamaxaya 3 arrimood yarkan u saamaxay. 3 arrimood yarkan u suurageliyay inuu sidaas isaga dhiciyo nimankaas. Waa mid inuu yaqaano xuquuqdiisa, waa nin xuquuqdiisa yaqaano. Waa midda labaad inuu afkiisa fiican u yaqaano. Waa midda saddexaad inuu yaqaanay iyaga waajibaadka lagu leeyahay iyo xuduudooda. macnaha nin si fiican sharciga u yaqaana, nin xuquuqdiisa yaqaana, nin afkiisa fiican u yaqaana. saddexdaas qofka markuu yaqaano si fiican uu soo difaaci karaa sida wiilkan ay hadda meesha ka muuqda. Wiilkan wuxuu noqday yarkii sanadkuu noqday. Waxaan arkay videogan oo noocyo badan loo duubay, siyaabo kala duwan loo duubay oo ay soo qaadanayaan warbaahinta caalamka iyo miidiyada waaweyn ee looga hadlayo dad badan oo dadka caanka ah oo warbaahinada caanka ah waxay soo qaateen videogiisa oo meelo badan ku soo qaatay oo ku ammaanaya sida wanaagsan oo isaga dhiciyay. Hadduusan maanta af aqoon lahayn xuquuqdiisa, asagoo afka yaqaan qofkii waxa laga yaabaa inuusan xuquuqdiisa aqoonin. Afka Ingiriiska aqoontiisa kaliya waxba ma tarayso. Afka adoo yaqaana waxa laga yaabaa inaadan xuquuqdaada aqoonin. Marka afkii oo aad taqaanid iyo xuquuqdii oo aad taqaanid iyo qofka kale ruuxadiisa waxa sharci ah oo qabanaya iyadana aad taqaanid, wixii sharci ah uu ku dhaqmayo iyo wixii sharci jabin uu ku dhaqmayo. Intaas markaad taqaanid si fiican isaga dhicin kartaa dadkan. Teeda kale bateriyaasha la buuxsado, sheekadan sheeka dheer ay noqon doontaa sida u eg tahay bateriyaasha chargerkaaga mar walba hayso, baterigaaga iyo dayradaada ama internetkaaga mar walba si fiican kugu shaqeeyo. Waxaan oo kale ku qabsan kara hadda yarkaan qabsaday, kaamiradiisana si fiican oo runtii video dheer oo ilaa iyo daqiiqado badan gaarayo inuu iska duubay. Inkastoo ay ka fiicnaan lahayd iyadoo qof uu la socdo, sababtoo wax kasta ay samayn kareen, Ilaahay ka badbaadiye. Laakiin haddana sida wanaagsan u dhaqmay, kaamiradiisu iska duubay, sida degnaanshaha iyo kalsoonida ah uu u hadlay, runtii wax walba ka weyn. Taasaana beel ah. Marka waxaan leenahay yarkan hambalyo iyo dhalinyarada kale oo sidaas oo kale iyagana xuquuqdooda yaqaana iskana dhicin kara dadkan oo kale. Soomaalida reer Minnesota sida sanadkan isu xil saareen ama bishaan aan dhahay isu xil saareen si aan caadi ahayn, runtii waajibkooda si fiican uga soo baxeen. Inkastoo bariyii hore oo dhan la baqaayay oo la soo bixi waayay oo meel walba la lahaa maxaa ku dhacay Soomaalida, maxay banaan baxan uga soo qayb gali la yihiin, maxaa dhacay, wax kastoo la yiraahdo intii hore oo dhan markii dambe si fiican ay isu soo muujiyeen oo waa kuwana soo baxay sida gabadhan hadda u qaybinayso maqaayadihii Soomaalida, dadkii cunada guriga ku soo sameeyay iyo dadkii maqaayadaha ka soo qaaday intaba meesha la isugu yimid cunaa la qaybinaya. Marka si fiican ay yeelan dadka reer Minnesota iyo reer Ohio iyagana waxay sameeyeen sidoo kale. Marka waa u hambalyeynayna dadka sida wanaagsan sameeyay oo runtii ismuujiyay. Waxa ugu quruxda badan videogan waxa waaye in dadkii murugeysnaa oo cabsida iyo calool xumada haysay oo murugada wajigooda ka muuqatay in cunadii iyo farxadii iyo in wajigooda wax ka bedeshay, sambuuskii lagu mashquulay iyo cunadii lagu mashquulay, dadkii xoogaa habiye noqdeen. Isbedelkaas ay sameeyeen Soomaalida, isbedelkaas ay sameeyeen runtii waa wax wanaagsan oo loogu hambalyeeyo.